dalka Soomaaliya waxaa ka jiray burbur baahsan kaasoo dad badan oo Soomaaliya ama siyaasiyiin ama dadka Soomaalida ay baadi goobayeen sidii mar kale dalka Soomaaliya ugu soo noqon lahaa saaxada caalamka isla markaana dawlad loo dhan yahay looga hirgelin lahaa gayiga Soomaaliya waxaanu la soconaa Soomaaliya 9 madaxweyne in ay xilka soo qabteen oo ugu dambeeyo madaxweynaha xilka haya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha wadanka Soomaaliya ee la soo doortay waxaan la soconaa in dhibaatooyin xoog badani guud ahaan dalka Soomaaliya ay ka jireen oo dhibaatooyinkaasi ay ahaayeen kuwa u baahan xal degdeg si dalka Soomaaliya sharciga iyo kala dambeynta iyo nidaamka dawliga looga hirgeliyo madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray xiliyadii ugu dambeeyay laga soo bilaabo 1991kii dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay dhammaan dib u heshiisiin la sameeyay ayaa xilka loogu doortay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynihii ka horeeyeen oo waxa lagu doortay gudaha wadanka Soomaaliya waxaanu la soconaa in mar walba dawladda dalka ka hana qaada ay ku shaqeyso caasimadda Soomaaliya oo kaliya meelaha kalena ay federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada madaxdu ka ah ay maamulaan isla markaana mar walba aanay dhici jirin in si baasan dawladdu ay ugu hirgasho guud ahaan wadanka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo xiliyadii ugu dambeeyay ama toddobaadyadii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa gobollo ka tirsan dalka Soomaaliya oo kormeer uu ku gaaray iyadoo degmooyin iyo tuulooyin aan hore looga baran in madaxda Soomaalidu ay tagaan uu madaxweynuhu gaaray waxaana ku soo dhaweeyay dad aad u fara badan dadka Soomaaliyeedna waxa ay u arkayeen inay ahayd tallaabo muhiim ah haddaba madaxweynaha dad badan oo Soomaaliya oo siyaasiyiin oo dawladda ka tirsan iyo qaar xisbiyada ka tirsan iyo shakhsiyaad caan ah ayaa ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha waxaanu barnaamijkayga caawa ku eegaynaa sida dadka Soomaaliyeed u arkaan socdaalkaasi iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado waxaan la soconaa in ciidamadii wadanka Soomaaliya guud ahaan aanay ka wada shaqaynaynin dhammaan gobolada wadanka Soomaaliya oo ay jiraan gobolada ciidamo iyagu ay leeyihiin welina aan ciidamadii la isku darin waxaan la soconaa xagga dhaqaalaha in aan weli aanay suuragal noqon dawladda dhexe inay maamusho waxaanu la soconaa qaybaha ururada bulshada in dadka Soomaaliyeed weli qaar badani ay maskaxdoodu ka gooxayso dhibaatooyinkii dalka soo maray laakiin aan dib u heshiisiin caama oo dhammaan dadka Soomaaliyeed ay wada qaateen inaanay jirin tallaabada madaxweynaha qaatay oo ahay tallaabo geesinimo ayaa dad badan oo Soomaaliya u arkaa inay tahay muhiim u tahay sidii dalka Soomaaliya hore loogu sii qaadi lahaa ama tallaabooyin muhiim loogu sii qaadi lahaa barnaamijka caawa waxaa igala qayb galaya oo ila jooga Salaad Cali Jeelle oo ah gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiyadda iyo midnimada oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ah ee ku sugan dalka Soomaaliya xilal hore u soo qabtay xildhibaan soo noqday isla markaana mar wasiir soo noqday oo ka soo noqday wasaaradda gaashaandhigga wasiir ku-xigeen iminka xisbi ayuu leeyahay waana siyaasiyiinta hadalka cadcad ee dadka Soomaalidu ay aadka u yaqaanaan waxa kale oo ila jooga gudoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka ah ee Shoshensa oo la yiraahdo Diini Maxamed Diini oo isna caawa barnaamijka igala qayb galaya waxa sidaas oo kale igala qayb galaya Cabdi Barre Yusuf Jibriil oo ah xildhibaan hore oo ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliya ee baarlamaankii hore iminka waa siyaasi ku sugan magaalada Muqdisho aadna xoogaal ah isla markaana la fagura arrimaha siyaasadda saddexdiina waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijka Doodaga caawa waxa sidaas oo kale igala qayb galaya qaar ka mid ah ardada jaamacadaha iyo dad badan oo Soomaali oo iyaguna doonaya in aragtidooda ka dhibtaan socdaalkaasi iyo sida loo sii horumari karo tallaabada geesinimada leh ee madaxweynuhu uu qaaday marka hore Salaad Cali Jeelle oo wafdiga ka mid ah ayaan weydiinayaa sidee safarkaasi aad u arkaysaa maadaama xisbi siyaasi ah aad madax ka tahay wafdiga dawladda raacay aad ka tirsaneed oo aad inta badan aad ka madax banaaneed laakiin haddana aad tahay qof siyaasi ah oo gobolada Soomaaliya aad xoogaal u ah tagay hore u tagay iminka tagitaankani tallaabo nooce ah iyo aragti nooce ah ayaad u arkaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waa idin salaama ka qayb galayaasha iyo Universalba TV shaqaalaheeda aad iyo aad mar walba Soomaalida aad iyo aad ma taqaanaa waxyaabaha muhiimka gaarsiiye aad u mahadsantihiin runtii safarka madaxweynaha oo aan ka mid ahaa wuxuu ahaa safar aad iyo aad ma taqaanaa sidii loo maleeyay ka fursad badan oo annaga markii hore u baxaynay iyo sida uu u dhacay
waxaa la dhihi karaa waa wax ilaahay raalli ka ahay ayuu ahaa runtii. maxaa yeelay dadka soomaalida oo markaad xamar joogto ku talagalka iyo waxyaabaha qalbigaaga ku jira iyo waxyaabaha dhibaatooyinkii lasoo mara markaad fiiriso iyo meeshay dadkaasi marayaan arrin oo kaafiya kala dheeriyahay ahayd runtii. marka waxaan kowdii hore aan ka degnay garoonka generaal maxamed abshir loogu magac diray oo garoowe oo runtii ahaa mashruuc kusoo kordha dalka soomaaliya oo airabor international halkaas laga furayey. marka sidii naloo soo dhoweeyey markii aan nimidnay meesha argada magaalada garoowe markii aan nimidna markii garoonka laga reebo ayaan waxaan aragna marka shacabka soomaaliyeed oo markaas inay madaxweynaha uun arkaan usoo baxay markaasna aan la xakamay karin oo sidaada markaas wafdiga usoo gelaya madaxweynehana inay arkaan oy salaamaan ay ka go-an tahay. ilaa maalintaas laga bilaabo oo aan kusoo gebangebeynay magaalada cabuud waaq runtii maalinba maalinta kale waa kasii farxad badneed waxa aan aragnay. marka madaxweynaha waxay aheeda markii ugu horeysay oo uu cagta dhigo magaalada garoowe runtii waxay u noqota marka fursad weyn oo dalbarasho iyo dadbarasho iyo dadka soomaaliyeed oo uu qalbi wanaagsan oo isaguna la tegiyey iyaguna qalbi wanaagsan kusoo dhoweeyey. marka runtii laguma soo koobi karo hadal laakiin wuxuu ahaa waxaa la dhihi karaa waxaa jirtaa dalika biana allaha lam yakun mugayira nicmata ancamahaa calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. marka dadku waxaa la yidhaahdaa haddayna iyagu isbedelin ilaahay ma bedelo waa inay iyagu la yimaadaan sababta. marka arrintan waxay aheeday arrin runtii ilaahay uu raalli ka yaho dadka soomaaliyeed oo marka dowladnimadii rabo oo dowlad goboleedkii ay joogeen mataqaanaa uuna ku filnayn ee qarannimo soomaaliyeed inay magaalo madaxdooda tagaan oy kasoo adeegtaan oo ay isdhex maraan raba. yaanan kugu dheeraynina waxaa la dhihi karaa arrintaasi mid ilaahay uu raalli ka yahay aheeda waxaana la dhihi karaa yididiila weyn soomaaliya waa guulaysataa la dhihi karaa waana dowlad shacabka soomaaliyeed inay rabaan ayay madaxweynaha iyo wafdigeenaba soo tuseen. runtii waxaana annaga nagu soo baxda haddii waxalaabaan ooba soomaaliya ay nabadda iyo dowladnimada ay gaari weydo shacabka soomaaliyeed ay ka gaari waayeen waa soo afjaranta. dadku waxay rabaan dowlad, waxay rabaan madaxdooda, waxay rabaan inay la shaqeeyaan, waxay rabaan kaliya in lagu hogaamiyo. hase ahaatee duruufo badan iyo dhibaatooyin badan ayaa jira. duruufaha iyo dhibaatooyinka jira waa usoo laabanaynaa. duufaantan shacbiga ee saameynta ku yeelatay booqashadii madaxweynaha ee gobolada dhexe iyo gobolada waqooyi bari ee soomaaliya ee madaxweynuhu uu ku tegey, waxaa dad badan oo siyaasadda oo dorasa waxa ay sheegaan in rabitaanka shacbigu ay ahayd waxa dhacayay aanay ahayn abaabul maamul goboleed ha ahaado ama madaxda soomaalida ha ahaato, laakiin in duufaan dadka soomaaliyeed rabitaanka dowladnimada ay u qabaan awgeed loo soo dhaweynayo. xagga arrimaha bulshada marka la fiiriyo ururadii bulshada madax ka taajini waxaan la soconnaa in ururada bulshada laftigooda aanay weligood ka daalin sidii dowladnimo loo gaari lahaa oo mar walba ay ahaayeen dadka shacbiga soomaalida ku dhiirigelinaya sidii dowladnimo lagu gaari lahaa. madaxweyne farmaajo geesinimuu qaatay, wuxuu tegey gobolada dalka weliba meelihii ugu dhibaatada badnaa. waxaan la soconnaa magaalada gaalkacyo oo kale in dhibaatooyin aad u fara badan ay ka jiri jireen weligeed oo mar walba dagaalo ka dhici jireen dad la isku dayeeriyay.
labada daan ee magaalada Suulahayd intay isku soo baxeen ayay soo dhaweeyeen taas waxay muujinaysaa kalsooni dowladnimada la siinayo oo shacbigu siinayo ma ku muuqataa dadku inay diyaar yihiin laakiin hanaankii dawliga ahaa sidii loo hirgelin lahaa weli talaabooyin ay ka dhameeyeen bismillahi raxmaani raxiim cawil maaragtay adigoo maaragtay barnaamijka noo daadihinaya iyo tv-ga universal iyo dhammaan asxaabta ka qaybgalayaasha cabdibarre iyo salaad iyo dhammaan intana daawanaysa waa salaamaya runtii waxay ahayd tusaale aada u fiican anigu shaksiyan waxaan dhihi karaa arrinkaas wuxuu ahay tusaale aada u fiican oo haddii yani sida ay tahay looga faa'iideeyo aanaan u dhihi karo waxa aada fiican ahayd markale tafaasiisha hoos loo galo badanaa tafaasiishu macno waxay samaysaa markaas ujeedka ah ka leedahay inaad aragto xoogaalaan u nahay waxaan qiyaasaa inaan bulshada dadka uga dhownahay waa khasab intaasoo dada ma imaadeen haddaan la organize garayn oo qarash lagu bixin oon juhdi lagu bixin laakiin misena waxaan la inkiri karin inay jireen dad ayagu rabitaankooda oo dhab ka ahay badanaana maamuladu yani marka ay kula shaqaynayaan oo dawladda la shaqaynayaan oo aanay dawladda dowladnimada kasoo horjeedin sawirka quruxda badan ee meesha kasoo bixi kara ayay meeshaas muujinaysaa laakiin markii maamuladu ay dawladda xoogaa xarig jiidayaan yani waxaa soo baxa sawir kaloo kan ka duwan marka haddii la heli lahay farsamo ay maamul goboleedyadu kula shaqeeyaan dawladda dawladduna ay kula shaqeyso maamul goboleedyada oo ay is ogolaadaan oo maaragtay in laysu ogolaado in madaxweynihii qaranka yahay runtii waxaa ka soo baxaya sawir aada u qurux badan tan ka dambaysa markii dee tafaasiisha gudaha loo gala inta kale ku dari doono runta marka laga hadlo arrimaha siyaasadda Soomaaliya xilliyo kala duwan mar walbaba mucaarado iyo dawladda dad la jira ama saaxiibo la ah mar walba way jirtaa mucaaradnimaduna ma aha wax mamnuuca laakiin mucaaradnimadu waxay ku saleysan tahay in aragtida lagu kala duwanaan karo qaabka laakiin dalkii waa dalkii dadku waa dadkii siyaasaduna waa tii un laakiin waxaa lagu kala duwanaan karaa hanaanka wax loo doonayo waxaa dhici karta in farsamada iyo aragtida la qabo ay kala duwanaan karto laakiin macnaheedu ma aha in dalku isbedelayo dadku isbedelayo marka Soomaalidu siyaasiyiintana aragtiyo kala duwan waa qabi karaan oo ma aha in la diidan yahay laakiin waxaad moodaa siyaasadda Soomaaliya marka la fiiriyo meelaha dadka dulduleelaha ay ka eegaan waxaa ka mid ah inaanay weli furfurnaanin dhacaynin dadka shacbiga diyaar yihiin maamul goboleedyadu hadda dawladda waa taageerayaan laakiin isku furnaanta waxay ka timaadaa wax isku darsiga siday suuragal u noqon kartaa in ciidamadii qaranka awoodda ciidan marka uu samaysmo ayay suuragal noqotaa dawladdu inay xoogaysato ma la hirgelin karaa mar haddii dadku diyaar yahay maamul goboleedyada diyaar yihiin in ciidamadii Soomaaliya in inta la isku daro hal ciidan oo dadka Soomaaliyeed leeyahay dalka Soomaaliya leeyahay oo awoodii dalka la wareega in la hirgeliyo sidayse suuragal ku noqon kartaa in la hirgeliyo maadaama madaxweynuhu bilaabay in dadkii shacbiga ay isagu aan cidna u dhaxaynin maamul goboleedyadii isaguna aanay cid u dhaxaynin cabdi jibril iyo cabdi bare bismillahi rahmaani rahiim awal aad baad u mahadsan tahay tvga university sida aad markasta xogta dadka u geysaan iyo ardada jaamacadda iyo shacabka Soomaaliyeed horta waa salaam runtii arrinta hadda dhacday maaragtay booqashada madaxweynuhu meesha ku tagay waa arrin taariikhi ah halkaa waxaa ka cad shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu bisil yihiin dawladnimo horta ugu bisil yihiin shacabka Soomaaliyeed waa shacabka kaliya oo u dhaganugul in la xukumo u dhaganugul kala xoogaa kale aragtay duwanaanshaha iyo maaragtay kale fikradaanshaha shacabka Soomaaliyeed isma nabca dhibka ugu weyn waxa weeye waa nin siyaasi oo dan gaaro la markaas dantiisa wata waxaynayo anigu inkastoo waftiga aan la socon laakiin xoogaal baan waxaan u ahay aada ula socday booqashadii madaxweynaha gobolada ee Soomaaliya ku tegey dadka in aan xoog lagu soo saarin oo aan lagu soo saarin muxuu ahaa kaalin madaxweynaha soo dhaweeyey ayagoo markaa raadinayay dawlad jacayl iyo madaxweyne inay arkaan shacabka goboladaas dhexe iyo Puntland iyo Galmudug runtii anigu ma aaminsana mana qabo in la soo abaabulay iyaga iskood isu soo abaabulay halkaas waxaa ka soo baxay laba sawir baa ka soo baxday booqashada madaxweynaha halka ku tagay laba sawir baa ka soo baxday sawirka koowaad oo ah nimanka maamulada madaxweynayaasha ka ah oo runtii dawladdan aada u mucaaraday taasu meesha waa ka baxday waxaa meesha ka soo baxday in ayna shacabkii Soomaaliyeed dawladda ka hor istaagi karin
oo shacabkan u baahayeen isla dhex galo dowladnimadiina ay hantaan oo arkaan meesha ka soo baxdo waxaa kaloo meesha ka soo baxday meeshii caalamka oo u haysatay soomaaliya inay kala xirxiran tahay inayna isu tegi karin inay isdhex mari karin oo tusay soomaalidu inay dowlad noqon karto isuna imaan karto taasaa kasoo baxday faa'iido weyn baa halkaa kasoo baxday middan ciidamada waa run waa saad u sheegtay farkaliyo fool ma dhaqdo shacabka soomaaliyeed maantayto haddii ay daacad isu yihiin oo ay damcaan inay waxda qabsadaan muddo 3 bilood ka yar dowladoodii iyo awooddoodii way soo ceshan karaan arrinta ciidamada waxaa lagu samayn karaa ma ahan mar kasta in la yidhahdo madaxweynuhu meeshii ha tago madaxweyne ha aado waxaa lagu samayn karaa ma ahan madaxweynaha kaliya in la fiirsado ma ahan in golaha baarlamaanku markay meesha tagaan ay wacyigelin sameeyaan golaha wasiirada laftagooda ayna xamar isku kooban meesha ayna fadhiino gobolladii ay tagaan oo booqashada ay badiyaan markii taa la sameeyo waxaa dhacaysa waxay soo dhawaanaysa aaminaad la isu soo aaminayo la isu imaanayo iyo sidii dowladnimada loo waxaysan lahaa marka meesha waxaa ka maqan isdhexgalkii mas-uuliyiinta dowladdu ay dhexgeli lahaayeen shacabkii ama baarlamaankii markay gobollada aadeen ha ahaadeen ama xukuumaddii ha ahaadeen isdhexgalkoodii kaliya halkan iska fadhiyaan horta muhiimaddu waa middaas u muhiimsan taa haddii la helo oo bilowgan maanta madaxweynuhu maaragtay bil dhalatay oo kale madaxweynuhu bilaabay in xukuumaddii sidoo kale ay bilaato oo ra-iisul wasaarihii carradii tago odayaashii aduu waxyaabo badan markii sidan la isu keeno isbedel weyn baa inoo dhacaya marka qaabkaasaa ugu fudboon sida wax maaragtay ciidamo lagu dhisi karo dadkeeda isu aamini karaa aada umahadsan tahay cabdi bare salaad waxaa jira intii wafdigaad ka mid ahayd dadkii socdo meelaha tegay intii waxaan u malaynayaa ilaa 10 goobood ayaa tagteen waxaa ka mid a meelaha taariikhiga ah ee weligeed aan hore loo tegin meesha la yidhahdo xeraale oo madaxweynihii ugu horreeyey uu tegey waxaa la dhihi karaa madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya ayaa deegaankaas tegey waa magaalo runtii dadkeedu aanay weligeed la kulmin madaxweynahoodii oo jooga meelaha aad tagtay ma ku aragtay sidaan la socono 275 xildhibaan ayaa baarlamaanku ka kooban yahay ilaa 54 sanatarna waa ka weyn dhammaan gobollada waddanka soomaaliya ilaa 90 iyo dhowr degma laga soo doortaa ama ay maalaan dadkii meelaha matalayay deegaanada aad tagtay xildhibaanada deegaanada ka soo jeeday oo madaxweynaha soo dhaweynaya ma la kulanta mase aragta xafiisyo xildhibaan leeyahay oo ka furan deegaanadaas aadaad u mahadsan tahay runtii horta markaan ku laabto shacabka meelaha la yaabka leh oo magaalada guriceel barxad waxaa ku taala la yihaa shimbira soonshi wax saasa laakiin aan aniga shimbira oonshi aan usoo qaatay haye barxaddaas marka waxaa waaye barxad oo aada u ballaaran shacabkaasi waxaan ka baqnay oon aniga nafteyda uga baqay iyagoona jecel inaan dhimano anagu intana dardaraan sida ay mataqaanaa ay dowladnimada u rabaan waxaa lamid ahayd iyadana barxad ku taala iyadana mataqaanaa oo la yiraahdo oo magaalada cabuud waa ku taala oo iyadana barxadda roob da-a la yiraah oo iyaduna ballaaran dadka isugu yimid haddaad aragto waa tacajubaya waxaad is leedahay soomaaliya dadkaani meeshan ma ku noolaaye dadkuna sidooda dhalinyaro waaye oo dadku 75% marka la leeyahay inay xaqiiqo tahay waa soo taabana marka su-aasha aad weydiisa markaan usoo laabto horta annaga xildhibaana waa nala socdeen oo hadday tahay galmudug iyo hadday tahay puntland intaba waa nala socdeen laakiin waxaa ugu muhiimsaneed oon soo arkay oo xildhibaan cabuud waaq jooga xildhibaan faarax ayaad soo aragtay oo asiga xafiis meeha uga furan yahay cabdishareerna waa uga furan yahay labada xildhibaan markaasoo aan marka isku sawirnay oo markaas mataqaanaa xildhibaanka constituentygiisii oo meeshaas mataqaanaa uu dadka ku qaabilayo oo cid degan ayna jirin xafiis kaliya uu u yahay oo aan ahayn mataqaanaa meel oo ay qoys degan yahay aan ahayn xafiis oo xildhibaanku leeyaha ah oo kuraasti taalo ayuu wuxuu noogu sameeyey quraac iyo qado runtii marka waa waxyaabihii xildhibaanka laga rabayo markii xildhibaanada la dooraayay deegaanadooda inay constituentigooda ay xafiisya ka samaystaan runtii arrintaas waa jirtaa hase ahaatee
markaan balanbal maraynay qadooyinka aan arkaynay qadadi soomaalida aheedoo oo mataqaanaa orjinaalka aheedoo adiga inaad isqabata ma ogiye macaanta ay leedahay aadan magaaladan caasimadda iyo aan laga helayno oo asalkii aheedoo tii aan baadiyaha markii hore ku cuni jirnaaheed ayaa meel walba kuu taalla marka waxaa la dhihi karaa saaxiibkeeyow waxaan fiirshay waxaa jirta marka oo dagaalka uu rasuulku gelhayo oo uu adkaahaye ay muslimiintu adkaahayeen wuxuu ilaahay yidhi maogtaha wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa markaad falam taqtuluuhum maadan dilina ee anagaa dilna mana aadan gemina anagaa gena arrintan marka waxay ahaaday arrin oo soomaalinimada inay soo noolaatay oo dadka ilaahay oo xasidka ka bixiyey oo caloolsamo uu ilaahay geliyey sidii roob uu ugu da-ayey hase ahaatee waxaan meesha ka maqnayn oo iyagana labada dowlad goboleed madaxweynahooda xeef iyo cabdiweli laba madaxweyne oo gacmaha ishaysta oo iyagu mataqaanaa ismarxabeyhayo cuqdad aynan kala dhex aalin iyo shacab aynan kala dhex aalin aan u tagna magaalada gaalkacyo oo meelaha mataqaanaa marka ugu dar oo aan isdhehayna marka ilan waa kala go-anta hala yidhaahdo magaalo isu furan oo wafdigii madaxweynaha lasoo wada dhoweeyey oo markaas mataqaanaa isdhex mushaaxaysa haddana ciidamada qaranka taliska xoogga taliyihii xoogga oo joogyo oo markaas ciidan isku dhafa oo militariga ay shaqaynayaan oo markaas marna oo taliyanimo u shaqeeyaha marna nabadoonnimo ay ka muuqato oo laga wada cisayhayo labada dhinac ou ka leeyahay sharafyo karaamo oo ku heesto na waa soo aragnay marka runtii waxyaabaha ay dadku marka dhahayeen aniga mar walba waxaan ka dhawaajinaya maadaama anaga aan qaadanay shahaadadii kumeelgaarkaeed oo eeday diiwaangelinta xisbiga waxaa aniga ii wehelisa marka oo safarka aan uga faa'iideysanayay cambaign oo aan ugu talagalay 10 gobol maadaama nala ka rabo inaan ka furno xisbiyada oo ugu yaraan ay markaas 10,000 kii gobol walba 1,000 looga baahan yahay arrimahaasaan marka mar walba aan waxaan ku dadaalaya meeshaan tagaba inaan marka focal point aan ku yeesho meesha oo xafiis aan kasii furo ama aan lagama gaaray laakiin aan iraado adaa iga wakiila oo markaas si uu isu sii abaabulo arrintaas marka dadku marka sida ay u rabaan inay codeeyaan oy hogaankooda doortaan oo qof iyo codkiis ay dalka ay ka la gaarsiiyo waxaad arkaysaa inay arrintaas hadday dhici laheeda ay noqon laheed marka suulka cijada in argagixisada cijada ay ku bixi lahaayeen oon dagaalba loo baahdeen maxaa yeelay dadku waxay u baahan yihiin waxay iyagu iska leeyihiin haddii marka madaxweynaha labada madaxweyne ama dowlad goboleedyadaba aan dhaho ay iyagu madaxweynaha iyo iyagu wada shaqayn yeeshaan meesha arrin yar aan kaa weydiiyo soomaaliya dad badan waxay isweydiiyaan mar haddii soomaaliya madaxweyne soomaaliyeed jiro labada madaxweyne hadda waad leedahay baarlamaanka soomaaliyeed ee dadka soomaaliyeed soo erebixin looma baahnaan lahayn soomaaliya hal madaxweyne leedahay madaxweyneyaasha kale in erebixin kale loo sameeyo ila ma jiro adduunku meel madaxweyne iyo madaxweyne iyo madaxweyne iyo madaxweyne 7 madaxweyne waa inay kala magacaaban yihiin marka madaxweynaha soomaaliyeed federaalka ahi magac bixintaasi isagaa iska leh laakiin soo kuma habbooneen in magac bixin kale la sameeyo runtii dadku waaba kuu sheegayaan waxay ku leeyihiin hogaamiyayaasha gobolada ha la yidhaahdo hogaamiyayaasha dadkaa ku dhaha wax hadda awoodahoo uga halaabayana oo ka dhumayana ma jiraan isla markaas erabixintii marka isku qaldoomi maayaano qofkii marka madaxweynaha qaranka ma ogtahay haddii madaxweyne la yidhaah in madaxweyne laga reed yidhaahdo
waxaa waaye waa arrin oo challenge ku ah magacaas runtii marka arrintaasi inkastoo ay dastuuri tahay oo dowlad goboleedyada mataqaanaa hadda maxuu ahay aan wax maanacaya aysan jirin qodob diidaya in madaxweyne la yidhaahdo oynan jirin oo referensiga meesha laga wato ay meeshaasi janis ka abuuran yahay haddana waxaa fiican sida aada og tahay qodobada quseeya federalismka waxaa kamid a in oo baarlamaanku oo dowlad goboleedyada oo nidaamka loo baahan yaha oo meel mariyo marka waxay soo geli kartaa marka xilligaas in marka loo era bixiyo baarlamaanka waajibaadka ou leeyahay ayayna kamid tahay marka taasi saasaa lagu xali karaa aan isleehay aada umahadsan tahay waan kugu soo laaban doonaa cabdi baraye waxaan farta u taagay su-aashaas madaxweyneyaasha aada weydiisay waa runtii horta salaad ba hadda su-aashay ga qaatay anigu waxaan qabaa meel haddii madaxweynihii qaranku tegey madaxweynihii dowladda federaalka in nimankii maamulada joogaya madaxweyne la yihahdo haddii markaad madaxweynihi tiri madaxweyne markaad tirahayd kii kaloo maamulgoda ku soo fiirinaya inuu asaga madaxweyne u qaadanaya marka arrintaas maadaama dastuurkii ku meel gaar yahay waxay u baahan tahay saxid federalismka loo saxo oo laga bedelo arrintaas maaragtay madaxweyne laga bedelo sida caalamka wadamada federaalka maamul goboleedyada iyo dowladaha hoos yimaada waxay gidigooda leeyihiin waa barasaab oo meesha xukuma waxa weeye gomarr baa la yidhaahdaa ama barasaab meesha xukuma taasuna waa imaanaysaa dastuurkan ku meel gaarka haddii la soxo marka taas in sidaas loo fahmaa fiican maadaama haddii dastuurkiina ku meel gaar yahay qabyo yahay dastuur ku meel gaara yahay federalismkii weli aan sidii tooska hel rabin loo hirgelin uusan dalkii si fiican ugu fidin oo weli dastuurkii qabyo yahay doorasho hal qof iyo holqod aan la gaarin waa nin walba wuxuu rabaa dee maamulka madaxweyne in la yihahdo rabaa laakiin waxa wax sixi doonaa waxa weeye markii dastuurkan afti loo qaado federalism dalka ku hormaro markaas inta ka horeysa nin walba madaxweynihiisa tunka isaga istaago laakiin ma qurux badna madaxweynihii qaranka oo wadanka marhaya in xataa la yidhaahdo ay calamadii xataa is agdhigaan labadii calan oo maarata si laba madaxweynaha kale isqaabiloo kale madaxweyne calanka lasoo agdhigo taasuna waxyaabaha xoogaa dadku runtii ay aada uga hadleen bay ahayd oo ma fiicna hadii mar haddii madaxweynihii qaranka meesha tegahayo dowladda soomaaliya federaalka tegahayo calankii maamul goboleedkan in maamul goboleed isoo hordhigo madaxweyne gaara isu muujiyo taasuna ma fiicno waa waxyaabaha u baahan maaragtay baarlamaanka inuu saxo marka intaasaan aada umahadsanta diini dhinaca arrimaha bulshada marka la fiiriyo soomaaliya dagaalada sokeeye iyo dhibaatooyinkai aafadii dhacday waxaad moodaa dadka dhallinyarada ah ee aadka u fara badan ee goboladaas ku nool xagga waxbarashada inkastoo la dadaalay oo meelaha qaarkood ay ka jiraan waxbarasho meelaha qaarkoodna isbitaallo yaroo kooban ay ka jiraan haddana baahi weyn ayaa ka jirta deegaanadaasi oo ay u badan yihiin in waxbarashada la habeeyo sidaasoo kale in cisbitaallada iyo meelaha dadka la habeeyo in dadka maskaxdooda laftigooda wacyigelin iyo sidii dowladnimada loogu baahin lahaa iyadana la gaarsiiyo safarkaas kulenba adigu dadkii tagay kama mid ahayn lakiin xoogagaalaa tahay sidee ugu habboon oo ama talooyin nooce ah ayaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya la siiyaa si wax loogu qabto dadka faraha badan lee dhibaatooyinku hay haystaan xagga waxbarashada xagga caafimaadka biyihii nadiifka aan jirin korontooyinka laftigooda dhibaatooyin ka jiraan noloshii aasaasiga ahayd oo bilowga u ahayd qofka oo ay adag tahay maxaad is leedahay waa u baahnaan lahayeen dadkaasi in dowladda lagala taliyo oo arrimahaasi si wax looga qabto wallaahi waa su-aal muhiima laakiin waxaan rabay laba qodob inaan taabto intaanan taagelin kow horta arrinka gaalkacyo laga sameeyey oo anigu aan aaminsanahay shaksiyan doorkaas waxaa cayaaray kaalin runtii aan maaragtay ku bogaadinayo taliyaha ciidanka oo isagoo haysta koofidii maaragtay taliyaha ciidanka haddana isu bedelay nin siyaasiyahoo deegaanka kasoo jeedo oo ka naxaya bulsho rayid ahaanna waxaan aaminsannahay gaalkacyo dad badana waxay u haystaan inay tahay meel fitnada soomaaliya ka timaado laakiin anigu waxaan aaminsanahay gaalkacyo inay noqon karto meel xalka soomaaliyeed uu ka yimaado oo haddii dadka deegaanka maaragtay magaalada gudaheeda ay heshiiyaan dadka kaleoo magaalooyinka ku xeeran ay heshiiyaan in haddana mar kale ay soomaaliya o dhan saas ku heshiin karto oo waxyaabahan aaminsana waxaa ka mid a
in gaalkacyo noqon karto buqcadda dib u heshiisiinta soomaaliya madaxweynuhuna u bixiyey madaxweynuhuna u bixiyey runtii arrinkaas waxaan aaminsanahay waxyaabaha ugu muhiimsan safarkaas qabsoomay welibana waxaa igu maqaalaa in maaragtay weli taliya ciidamada looga soo tegay oo shaqo sii waday marka taas horta iyada laftigeeda annagu haddaan nahay bulshareeda waa bogaadinaynaa madaxweynaha iyo taliyaha iyo cid kastoo ka qayb qaadataba gaar ahaan dadka deegaanka degan qodobka labaad oon rabay inaan isagana xuso waxay ahayd waa markii koowaad oo madaxweynuhu safro yacni aad looma dhaliili karo lama dhihi karo saan inuu sameeyey ahayd laakiin cillad guudo waxaa jirta soomaaliya markaan su-aashaas usoo noqdo ma laha qorshe yani marka meel loo safrayo dawladdu ay qorsheynayso 3 bilood 6 bilood ka hor oo su-aalaha meesha joogo inta daraasad lasoo sameeyo laga jawaabayo dadka rabitaankooda lasoo weydiinayo tusaale ahaan aniga sida madaxweynuhu sameeyey oo kalaan mar sameeyey gaalkacyaan ka tegey habeenaan seexday meeshaan dadkii kula shiray waxaan tegey weliba waxaan tegey meesha dee qadka loo bixiyaa qadka cagaaran ama yani markaas dhagxaan la dhigoon laysaga gudbi karin dadka waa soo wareystay cadaadaan imid dhusmareebaan imid gurceelaan imid yani waxaan weydiiyey hal su-aala waa maxay 5 shay ma sheegi kartaan oo idinku muhiimsan oo haddaad xal u heshaan wax weyn idinku soo kordhayaan su-aasha koowaad ay sheegeen maaragtay waxay ahayd khilaafka siyaasiga haddiina laga xaliyo wax badan aan qabsan lahayd yacni arrinka ahlu sunna oo matalan maamulka galmudug runtii madaxweyne xaaf iyo maaragtay sheekh shaakir iyo raggooda ahlu sunna ay sameeyeenna waxay ahayd wax weyn oo waktiga dawladdan u jirtay soo kordhay oo runtii ayada laftigeeda aan ugu mahad celinayn marka labadaa qodob marka laga reebo dadka waxay ku leeyihin horta khilaafka siyaasiga haddiina laga qaado wadooyinkana naloo dhiso dekedna naloo sameeyo annagaa shaqaysanayna dadka qaar waxay aaminsan yihiin wax kasta oo khayraad oo haystaan inay dhaqaale ugu filan yihiin amni fiican iyo garsoor fiican deked wax uga soo degaanoo loo sameeyo oo ilaahay ku manaystay soomaaliya dekeday haystaan ma fahamtay iyo maaragtay waxyaabaha khilaafka siyaasiga keenayo o dhan in laga hortago oo nabadii laga shaqeeyo isdhexgalkii laga shaqeeyo laakiin hal qodoban waxaan aaminsanahay wax kastoo horumaraho bulshada soomaaliyeed gaari lahayn hortaagan yihiin mid ugu horeysa waxaa waaye dadkii aqoonta u lahaa oo waxaas ka shaqayn lahaa xafiisyada muhiimkaa waxaan laga qorsheeyey ma joogaan maamul goboleed hadday tahay maaragtay tii qaranka federaalka hadday tahay meel kasta meesha soomaaliya ay ka haysataa tabardarrada arkaysaan oo aad isweydiinaysaan maaragtay dastuurkii oo kale 12 sana laleeyahay dastuura la samaynayo cid samayn kartaa maali macna karti aqoontiyaa maqan kartidii aqooneedaa maqan marka waxaa leedahay dib u eegid ha lagu sameeyo waxaan qabaa aniga meesha wax ka dhaqaaqi laayihiin rabitaanka shacbiga ay dawladnimada diidan yihiin ama rabaan maaha shacabka inay rabaan waa muuqataa aqoontii maamulka iyo horumarinta maamulka aa maqan aqoontaas dadkii aqoonta lahaa ee kartida u lahaa aqooneed lahaana waxaad moodaa xitaa dawladihii lasoo maray laga soo bilaabo waktiga carta in qof kastoo aqoon-yahana maamulka laga fogeynayo marka meesha oo aan waxbaba loo qorshay karinoo wiilashaas dhallinyarada ah oo jaamacadda dhigta waxay u baahan yihiin inay shaqaystaan waxay u baahan yihiin inay guursadaan waxay u baahan yihin reerkii wax kusoo tabcay inay maaragtay wax taraan fursaddii waxaa u diidaya ciddii wax u qorshayn lahayd oo horumarkooda ka shaqayn lahayd innaba xilka ma hayaan waxaan ka hadlaynaa technocrat level ma ka hadlayna siyaasiyiinta meesha ay culaysku ka jirtaan halkaasaan aaminsanay marka waxaad leedahay taladaadu waa in dib u eegid lagu sameeyo aqoonta dadka wax maamulaya aad aa umahadsan tahay su-aashii arrimaha bulshada ku saabsanayd ama waxbarashada iyo caafimaadka iyo sidii marka waxaad kusoo koobaysaa ood leedahay aqoontii haddii aan la helin waxba lama qaban karo anigu waxaan aaminsanahay number 1 meesha laga fikir soomaaliya waxaa haysta waxyaabaha adduunka afka qalaad lagu yidhaha capacity development in la hormariyo mujtamac la hormariyo marka aad rabto ciddii hormari lahayd oo aqoontaas lahayd waa inaa haysataa yacni gobolladii iyo maamuladii markaan tagnay oo aan hoos u wareysanay matalan tusaale yaraan ku siinaya simbala soo qaadan karto jaamacadaha 5 sano ka hor jaamacad muqdisho ka dhisan oo 5 sano jirtay 5 sano ka hor quality-ga macallimiinta ninka professorkood maaragtay chancellarka oo jaamacadda xukumayo aqoonta uu leeyahay hadda waxaa lagu tartamaa macallimiintu inay PhD haystaan dadka kuliyadaha maaragtay focalka yani diinka u ah inay PhD yihiin marka quality waa isbedelaya
marka koraa loo socdaa koraa loo socdaa laakiin waxay ku xiran tahay sababta loo tartankaa keenay waa private sector tartankaa keenay Sax. laakiin dowladda dhexdeedu cid la tartamaysa male marka waxay u baahan tahay siyaasiyiinta sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada iyo baarlamaanku inay ka fekeraan oo dhahaan waxyaabaha wax walba ay u istaagan yihiin waxa ugu horeeya waxa waaye aqoon daro laakiin hadda tallaabooyinkaas waa la qaaday oo agaasimayaashii guudba hadda waxaa la yidhi waa loo tartamaya oo laftigeeda waxaa u malaysaa in dowladda laftigeedu ku baraarugsan tahay sida agaasimayaasha guud oo hadda la leeyahay waa loo tartamayo c v-yada dadku qorteen oo mar dhow laga yaabo in inta loo tartamo xelalkaa la qabto marka fekerkaasi waa horeeyey waana suuragal in wax weyn laga qabto laakiin talada aad soo jeedinaysa xogta aan anagu hayno waxaan isleenahay waxii aan ka sugaynay wax ka aan ahayn inay ka soo baxaan cabsi weyn aan ka qabnaa annagana bulshareed ahaan calaamad su-aala noo saaran waa sugaynaa marka dadka imaanaya aad baa u mahadsan tahay haddaad tahay hadalkaaga waxaa ku jirtay caqabadaha waxaan jeclaan lahaa caqabadihii intii aad safarka ku jirteen iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo aad is leedahay way socon waayeen oo aad talooyin ku bixinayso maxaa ugu waaweyn su-aalaad iga weydiisay meel aan hore madaxweyne u tegin inay tahay runtii xeraale markii aan tagnay waxay ahaydeen meeshii dagaalka galmudug oo dagaalkii oo ku yeesa goosta amba oo ku dhammaaday ilan hadda waa heshiisa galmudugay marka meesha markii la tegey runtii waxaa ka muuqatay daruuf adag waxaana ka jira weli qaybsanan sababta aan markaan tegayno oo kale waxaa ka muuqday in laba qaybood ay ka jirtoon isfahamsanayn marka hadalaa la furay marka waa la isu soo dhadhaweeyey goobtii si wada jira ayaan u wada tagnay iyadoo laba kale aragti duunay aragtadiyaa la isu soo dhaweeyey meesha saasaan ku tagnay waxaan kaloon tagnay meeshii oo sheekh yuusuf direed qabrigiisii oo iyaduna aheeda meeshii diinka laga bara jiray runtii iyadana mataqaanaa labadaas meeloodba waa booqanay runtii marka dadku waxay marka ay aada iyo aada ugu baahan yihiin wax un horumara in la sameeyo dadku kulli waxay ku leeyihiin horta waxay rabaan kow degaankooda in la tago labo waxay rabaan meeshaas in aeroboor laga dhiso iyo deked iyo haddii ay deked u dhowdahana waa deked waxay rabaan laamiyada inay helaan in jidad ay helaan dadku marka waxay ka waramayaan markaad aragta iskuulay ka waramayaan jaamacaday ka waramayaan wax kasta oo horumara ayay ka hadlayaan qoryahana la siiyo ma dhihin qoryo ma rabaan oo iyada horumar waay ciidankaa nugu yar ma dhahayaan risaas ma haysano ma dhahayaan kulli waxaa waaye marka maxayna aheeday xeraale meesha oo markii dhuusamareeboo kale lasoo weeraro gurmadku meelaha uu ka tegayo waa balambal iyo cabuudwaaq iyo xeraale laakiin furuntiga hore waxaa ku jira cadaado iyo guriceel iyo dhuusamareeb marka dadkaanu marka waxay ahaayeen dadkii oo marka ahlu sunnada ay mataqaanaa ay hogaaminaysay oo markii ugu horeysaba magaalada guriceel laakiin ahlu sunnada laftigeeda inay ku kala jabtaan u malaynaya oo laba gurub ku kala noqoto meeshan xeraale iyo dhinac kaleba waa hadde markaan dambe laakiin dagaalka wuxuu soo ahaa mar shabaab lala diriraayo iyo mar dhexdooda uu ka jiriyo marka xeraale waa 3 jirsata dagaalku waa ku daba mariye marka runtii waxay u baahneeda marka meel oo aada iyo aad madaxweynahana waa u gudbiyeen aaraadoodii laakiin arinta oo la rabo in dalka soomaaliya hadda oo la rabo in dowladdu ay waxyaabaha inay wax ka qabata loo baahan yahay waxaa ka mid a horumarka meeshan dadku horumarkaas haddii ayna helin adiga waxa ay dowladda ka rajayhayaan oo ay dhigtoodu waxay isleeyihiin dowladdu wax may idin qabato waa horumar waa ka sugayaan qodobka kaleoo loo baahan yaho dadku ay ka sugayaanna waxaa waaye
in ciidamada la mideeyo oo ay timaado qaab dhismeedka amniga qaran oo hadda loo baxshay national security agriculture loo bixiyey waxaa waaye in la mideeyo ciidamadaasu oo ay markaas joogaan dhammaan gobolada dalka maxaa yeelay qaybta 21aad qaybta xagga waxaa qaybta 21aad iyo waxaa halkaas walba markii hore iyo qaybta 54aad qaybta 27aadna Hirshabeelle waatii laga sameeyey qaybta 60aad waa in marka sidaas sectoriska ciidamada la sameeyo oo madaxweynaha markuu degiyaba ciidan qaran ay la kulmaan oo madaxweynaha meesha oo hadda oo mataqaanaa oo dowlad goboleed oo kale inuu mataqaanaa markaas oo marti ahaan asagoo madaxweynihii qaranka in la soo dhoweeyo ay cutubiyada qaranka oo militariga ay soo dhoweeyaan halkii heer dowlad goboleed laga soo dhoweey lahaa ay ciidamada heer dowlad goboleed ay soo dhoweey lahaayeen ciidamada qaranka inay soo dhoweeyaan taasna hadda sida ii muuqatay waxaa ka muuqatay dowlad goboleedyadu shirki ka dhacay xalane iyo madaxtooyada villa Soomaaliya in la isku afgartay ay ku soo jirto su'aal siyaasadeed salaad sida muuqata wax wada yeelashada dadka shacbiga ahi waa muuqataa shacbiga Soomaaliyeed inay wax wada leeyihiin walaalo yihiin Soomaali yihiin aragti mid ay leeyihiin dawlad rabaan waa muuqataa lama qarinayo ma muuqatay adiga madaxdii maamul goboleedyada iyo madaxweynihii la kulmay madaxda qaranka iyo madaxda maamul goboleedyadu wax wada lahaasho Soomaalinimo ma muuqatay aad iyo aad meesha labada dawlad goboleedoon tagnay runtii yididiila weyn ayayna geliyeen dhaqanka ka jira eriyadaas door weyn oo isaguna lahaa maxaa yeelay haddii aan boosaaso joognana ugaasaana marti qaaday haddaan joognay mataqaanaa qardhana boqorkii baana marti qaaday markii aan nimidnay gaalkacyo na waxaana marti qaaday islaam bashiir markii aan nimidnay guriceelna ugaas xasan ayaana marti qaada marka meel walba marka waxay ahayd dhaqan muhiima ayaa iyaguna joogay oo markaas hadday hadlaan Soomaalinimada loo istaagay isla markaasna ishaarada ay bixinayaan lagu shaqeynayo ay tahay qarannimo Soomaaliyeed oo waxa ay xilligii ay dowlad goboleedka inay marka ay ka gudbeen oo marka ay ishaarayaan qarannimadii Soomaaliya ayaa meeshaas ka muuqatay waxaan kale oo rabay oo dadka ka arkayay dekedaha waxaad ogtahay markii laga reebo berbero oo hadda wada hadalka waad ogtahay in Somaliland wada hadal lagula jiro laakiin hadda inta aan gooni ogoosadka aan haba yaraatee sheegin oo Soomaalinimadii ku mintidaysa waa saddexdan dekedood Boosaaso iyo Kismaayo xamar marka in iidana mataqaanaa wasaaradda maaliyadda ay ka howlgasho oo arintaasi ay timaado sidii loo midayn lahaa canshuurta indirectiga oo dawladda uu sharcigeedu tilmaamayo ilaan dastuurkaa tilmaamaya ma ogtahay in kastamiskaas ay dawladda dhex fadhido iidaas markii lagu guuleysto dawladdu ay samayso wax weyn ayay mataqaanaa laakiin hadda waxaad moodaa in dawlad goboleedyadu baahiyaha iyaga ay qabeen sida immigrationka oo kale waaxda socdaalka oo kale oo baasaboorradii iyo looga baahan yahay oo hal meel kaliya dawladda dhexe ay tahay baahida dawladda dhexe way codsadaan laakiin dawladda dhexe baahideeda sida arinta dhaqaalaha in la mideeyo kale ciidamada la mideeyo kale maamul goboleedyadu mar kasta waa ka xaga jiidaan miyaanay ku muuqan baahidooda kaliya rabaan intan dawladda dhexe ma doonayaan haddee waxaa la rabaa in inta lala xaajoodo iyaga mataqaanaa hadda waxaana la socday
sargaalka mataqaanaa immigrationka koofi waa nala socday xafiis meelo badan oo xafiis meel walba hataa wuxuu soo booqday gaalkacyo inta nooga tegay wuxuu soo galdogob waxay ahayd marka asiga meel walba waa halka hay-ad oo meel walba ka furan maxaa yeele waa loo baahan yahay waa loo baahan yahayo waad arki kartaa laakiin isaga naftiisa maraan la sheekaysta wuxuu yidhi hay-adaha dawladdu sidai aniga hadday yeelaan waa u suurageli oo rajo wuxuu muujiya haddii wasaarad walba ay halkan timaado way qaban kartaa shaqadan aan qabaayo waa qaban kartaa kamid aheed warkiisa waxyaabaha marka ay soomaaliya u baahan taha marka waxaa kamid a maalgelin in caalamka uu maalgeliyo nabadda soomaaliya dawladda dhexana ay samayso company low waxa loo yaqaano oo mataqaanaa sharciyada shirkadaha private sectorka markaas waxaa imaanaya dawladaha shisheeye inay kusoo dhiiradaan oo la macaamilaan hay-adahaas arrimahaas waa arrimaha marka ay dadku runtii ay si fiican ay mataqaana dhammaystirka dastuurka haddii aan dastuurka aan la dhammaystirin oo uusan arintaasu ayna noqon mid la dhammaystiro oo soomaaliya mataqaanaa dastuurkeeda ku meel gaar waaye laga saaro oo noqda mid rasmiya waxaan isleeyahay iidana waxay keenaysaa markaasi in wada shaqayntu ay fiicnaato fiicnaanayso haddii dastuurka la dhammaystiro shuruucdii oo dhan la ansixinaya dhammaa imaanaysa wax isqaqabsiya jiri maayaan waxay soo gelaysaa dawladda dhexe iyo dawladda hoose waajibaadkooda kala cadaana dadweynaha dhan marka maxaa yeelay dawlad goboleedku waa horjoogahaasina haddii uusan shuruucda aan lagu ilaalin wuxuu naqaa shacabka marka isuma gudbi karayo isu gudubkaas marka waxaa qeyb libaax ka qaadanaya dhamaystirtaga dastuurka aadaad u mahadsan tahay waa ku mahad celinaya waan idin mahad celinaya kulligiin su-aalaha ayaanu bilaabaynaa dad badan oo dhallinyara oo aqoon-yahanaa ayaa iyaguna nala jooga si ay su-aalahooda ay u weydiiyaan ciddii su-aal qabta su-aalahaanu ka bilaabay ninka odaga iyo su-aashaada bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulaahi xuseen canshuur degan muqdisho waxaan u mahad celinayaa siyaasiyiinta iyo madaxda kala duwan iyo bahda universal t v runtii wax badan iyo su-aalo badan oo qabna qaarkood baa laga jawaabay haddana weli waxaa jira in waxyaabo badan la isweydiinayo waxaan ku noqonayaa ururada bulshada rayidka soshinsa dini ka suko annaga idinkaan ida silmaana haddii bulshada rayidkana annaga naftarkeena ahanay dhalinyaro ahaan laba ururaa jirta hadda waa ururka dhalinyarada qaranka iyo ururka dhalinyarada gobolka banaadir labadana waxaa laga yaabaa dhammaanteen hadda hoolka inta ku sugan inaan midna qayb ka ahayn ka suko waxaa sii jirta dhalinyaro degmo kastaa 17 degmo ah mashruuc hadda ugu dambeeyey oo maamul gobolka banaadir oo fulaa kunka dhalinyaro haddana waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay si siman ay usoo gaarin taas ayadoo jirto 75% waa dhalinyaraan leeyahay salaad cali jeele siyaasiga hadda xisbiga isagana hogaamiyo oo runtii dimuqraadiga ah wuxuu eegayaa dhul dheer wuxuu leeyahay xarumaha waxaa ka hirgelinaya dowlad maamul goboleedyo annagii muqdisho joogna waxaa laga yaabaa inaasan waxba ku lahayn mid taa lamid ah tan kale oo ahayd tan maamul goboleedyada madaxweyne magaca loogu yeeraayo kaskow ana hadda wariya ahay muqdishoa jooga waxaa arkaysaa warbaahinna qaar inaan maamul goboleedka intaa laga tagay oo la yihahdo dowlad goboleed dowlad haddana loogu yeero taas saameynaya naftirkeeda yeelanaysaa marka sidee loo mideyn lahaa dhalinyaronimadaas oo haddana higsigeena uu gaari lahaa iyadoo haddana xafiisyadii meelay ku yaaleen oo aanu hoos tagna aan u heli lahayn aada umahadsantahay haye ninka kale odaga su-aashaada si fursadaha loo helo su-aalaha laga bilaabo aragta waa bismillaah ugu horeyn aad baan idiin salaamayaa siyaasiyiinta salaad cali jeelle maxamed diini iyo cabdi barre inta waxaan idin leeyahay aad baan idinkugu mahad celinaa t v-ga universalna sidoo kale magacaygu waa cabdulaahi xasan cadaaw cabdulle buqaari kolley safarka madaxweynaha wuxuu ka dhignaa mid
ididiilo badan gelinaya dhalinyarada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed qof walba soomaalina wuu arki karaa maanta waxa ka soo baxay iyo qaabka loo soo dhaweeyey boqolkiiba boqol kolley su-aasha aan qabo waxay tahay waxaa jiro xisbiyo badan oo arrimaha bulshada markii aan ka hadlo iyo ururo badanaa jira waxaana dareensannahay shay weliba maanta wuxuu ku kooban yahay magaalada muqdisho dalka soomaaliyana aad buu u ballaaran yahay gobollo badanaa jiro maamul goboleedyo badanaa jira waxaad arkaysaa waxbarashada ka dhalinyaro ahaan iyo arday ahaan markaan ka hadlo jaamacadihii iskuulaadkii gabi ahaantooda waxay ku kooban yihiin muqdisho xafiisyadii dowladdana waxay ku kooban tahay muqdisho sidoo kalena dowladda muqdishoay degan tahay marka madaxweynaha maanta wuxuu sameeyey mar haddii uu booqday gobollo badan ama magaalooyin badan oo weli aan la tegin taasi waxay muujinaysaa in shacabkaas ay u baahan yihiin dowladnimada waxay tahay xaqna ay u leeyihiin maanta inay helaan baahi weliba uga baahan yihiin xafiisyada dowladda marka saad cali jalle aad baan ugu mahad celina waxaa weydiinaa wuxuu dhahay xafiisyo badan aan xagga ka furan doonaa meesha laga maamulo xisbigiisana kolley fadhigiisa uu yahayna waa muqdisho marka maku tala jirtaa in dadkaasi aad ka qeyb geliso siyaasadda soomaalidu hadda way ka gudbaysaa qabyaaladda insha allah waxaa loo gudbi doonaa meelo badan marka waxaan kaloo leeyahay aan usoo jeedinayaa sidoo kale arrimaha bulshada iyo aan leeyahay ururada in aysan ku koobnaanin muqdisho ay siiyaan gobolada kale iyo maamul goboleedyada wasaaradaha dowladdana ay xafiisyo ka furtaan aada umahadsantahay haye su-aashaada kale su-aalaha aad hala abaaro bismillaah magacaygu waa xasan shuuriye cabdi waxaan rabay su-aasha koowaad inaa siyaasi salaad cali jaallo weydiiyo oo ah ma idan la socdeen wasaaradaha dowladda oo kaleete amaba hay-adaha dowladda wafdigiina ka tirsanaay ee deegaanada tuulooyinka iyo degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee wafdigiina uu ku safraay la socday ee degmooyinka iyo tuulooyinka iyo dadka deegaanka la kulmay ee maamulada ka jira la kulmay sida wasaaradda arrimaha gudaha kaleete wasaaradda iisheeg maaliyadda oo kaleete si ay qiimeyn iyo iisheeg wacyi badan oo meesha ka jira ay usii ogaadaan si hadhowdii ay u fududaato in wasaaraddii maaliyadda ee dad saraakiil markaas horkaco oo experience meeshaas kasoo helay wacyiga ka jiro soo ogaada sida wasaaradda arrimaha gudaha oo kaleeta inkastay wasaarad arrimaha gudaha maamul goboleedkii haddana ka jirto haddana wasaaraddii arrimaha gudaha iyo hay-adihii kaloo dowladda dad saraakiila oo ka tirsan dowladdii dhexe oo hay-adahaas matala wafdigiina ka tirsanaay oo wacyiga dhabtaa ee ka jira deegaanadaas miyiga soo ogaada ma jiraa su-aasha labaad waxay tahay su-aal labaad inkastoon ku dheeraad su-aasha labaad isla asaga salaad cali jeelle waxaa tiri guddoomiye xisbiyaa tahay sidaan wada ogna xisbiyada kale ee jiro iyo xisbigaaga in weli kulan ma yeelateenoo ma ka wada hadasheen in dadkii dowladnimadii iyo nidaamkii loo daadajiyo la gaarsiiyo maadaama dowladdii ay awooddeeda iska yar tahay idinkii inaa contribution inaad samaysiin xafiisyo aad ka furateen deegaanadii oo dowladnimadii dadka dad waxaa jiro ilaa hadda dowlad soomaaliyeed iyo nidaam aana warka hayn marka dadkaas inaa wax intaana doorasho iyo nidaam iyo siyaasad ka qaybgelin aana ka fikirinaha inaa horta dadkii dowladnimada iyo nidaamka jiro iyo adduunyada say u shaqaysay inaa fahansiisiin ma weli ma ku fikirteenoo ma hawshaas ma samaysan aadaad umahadsan tahay su-aalaha kale oo soo laabanaya su-aalihii hadda saddexdaa dhalinyarada idin weydiiyeen haye salaad adaan kugu bilaabaya qodobka koowaad wuxuu ahaa sidaan isla sidee loo miday karaa dhalinyarada runtii hadda dhalinyarada sida aan ka warqabno waa mujaronsadii dalka hase ahaatee wetii ay doorasho ku qabsato xamar magaaladan xamar runtii waxay dooratay madaxa macalimuhu iyo rag kaleetood taas waa kuwa saxaafadda waaye kuwa kaloo dhalinyarana way samaysanayaan waxaa kaloo jirta inay open tahay oo mar walba ay xur u yihiin inay dhaqdhaqaaqooda ay sameeyaan arrintaas marka waxay u baahan tahay dhalinyarada in hal meel laga xakumo oo dhalinyaro soomaaliyeed waxaad ogtihiin s y l ba waxay ahaaday dhalinyaro waana ismaamushay marka waxaad xaq u leedihiin marka hadda wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ayaa joogta
wasaaraddaas idinkoo la kaashanaya marka ama ay iyada waajibaadkeediba ay tahay marka in heer qaran dhalinyarada ay yeelato, heer gobolna heer dowlad goboleed ay yeelato, heer gobol ay yeelato, heer degmo ay yeelato, saasay ku midoobi kartaa. markaasna wax u noqon karaa marka dhaqdhaqaaq ummadda soomaaliyeedna markaasi meesha oo ay ka shidaal qaada karta oo hadda awoodda xoogga degdega laga heli karo meeshaas waaye. haddee waxyaabaha marka aan annaga hadda ku biiri karna waxaa waaye mar haddii axsaabtu ay howl gasho dhalinyaradu haddee waxay noqonaya xisbi walba dhalinyaro u yeelanaya, garabka dhalinyarada iyo garabka haweenka u yeelanaya. marka halkaas waxaa ka imaanaya marka idinka in laydin daneeyo. annaga waxaan u baahannahay aqlabiyadaa loo baahan yahay. marka qof kasta oo idinka mida waa laydin imaa haddii xisbi ou meel maro oo nidaamka xisbiyada ou yimaado idinkaa qiimo yeelanaya. qaabkii odaga waa laga gudbaa, codkiina loo baahan yahay. marka dadka ugu qiimo badan oo birito mataqaanaa loo baahan yahay idinka waay. maka qayb galeen su-aashi labaad aada iyo aad runtii waxay ahayd wasaaradda arrimaha gudaha oo markii horta wasiire waa nala socdeen, hase ahaatee waxaa ugu muhiimsanaa howlaha hadda wasaaradda arrimaha gudaha. waa ogtihiin in si degdega loo magacaabay markii annaga aan dhoofaynay ayaa iyagana gadaasheenna laga dhaariyey. wasiirku marka waa naga daba yimid, wuxuu noogu yimid magaalada gaalkacyo. aada iyo aad ayuu marka qeyb libaax uga qaatay arrimo khilaafaadahoo oo jiray. hase ahaatee uma suurtogelin, waa degdegsanaa, dib ayuu usoo laabtay. hase ahaatee xildhibaanadii deegaanada iyo wasiiro hadda madaxtooyadyaana socotay oo kumbudahoo hadday yihiin la taliyayaashii madaxweynaha, haddii ay yihiin mataqaanaa maxaaway agaasimayaashii, haddii ay yihiin mataqaanaa xildhibaanadii oo mataqaanaa heer gobol oo heer dowlad goboleedyada, kuwii aqalka sare iyo kuwii aqalka hoose. marka malaf fiican aa lagala soo laabtay. annaga xisbiyada meesu tagteen, annaga 7 xisbi ayaan diiwaangelinta ku helnay. isla markiiba waa isla fariisanay, waxaan samaysanay xiriiriye, waa midaysannaha, waa iska warqabnaa. runtii marka waxaana le diiwaangelinta rasmiga marka waxay u baahan tahay in 10 gobol 10,000 laga helo oo 18 gobol dalku waaye. marka 9 gobol waa inaad dhaaftaa marka oo 10 gobol aad soo heshaa. 10kaas gobol oo min 10,000 ayay noqon doontaa. arintaas marka idinka markaan xagga aan u ordaayo no cararayo inta fadhigaygi waaye. muhiim waxaa marka meesha aan xafiiska weyn ka furayn in horta laga soo bilaabo. inta waaba isku hubtaahe idinka hadda dhalinyaro aniga waxaan maalinta axadda aan la kulmaaba oo ii ballansan yihiin dhalinyarada gobolka Banaadir qayb kamida. marka ha dhararina, dalka idinkaa u talaayo, waad arki doontiin. muhiimna idinkaa ah. nidaamka axsaabtuna wuxuu soo afjaraa qabyaalada iyo argagixisanimo. aada umahadsan tahay. diini ayay su-aashii okay markaan galo su-aasha ugu horeyso dhalinyarada maaragtay maxay uga mid noqon waayeen ururada bulshada rayidka. waxaan rabaa wax oo inaan dhaho aan isleeyahay adinka iyo dadka kale oo daawanayaba faa'iiday u tahay. soomaaliya marka la joogo 2 arrinaa weli isla shaqaynaya. markii hore nidaamka socialistaha lagu shaqaynayay, nidaamkii socialistaha waxbaa ka haray oo weli dhaqamadiisii iyo qaabka bulshada u organize gareyn jiray waxbaa ka haray. waxaad arkaysaa ururka haweenka qaranka, ururka dhalinyarada qaranka, systemkii hore dowladdii hore oo maaragtay 90 ka horreysay ku shaqaynaysay structure u dhisanaa jira. dhinac kale waxaa jira nidaamkan cusub oo dimuqraadiga oo markii hore civil society wax la yiraahdo bulsho rayid ma jiri jirin. hadda waxaa jira bulsho rayid oo iskeed isu abaabushay.
nidaamkaas dimuqraadiga marka qofku marka uu dowladda wasaarad hoos tago waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay inuu nidaamkan kale la qabsado marka labadii sistemaa kala duwan laakiin haddii aad tihiin dhalinyaro iskood isu abaabulay oo aan wasaarad toos u hoos tegin annaga albaabkeenna waa idin furan yahay waana kasoo qayb geli kartaan laakiin annagu cidda aan u doodno mar kasta xuquuqdooda iyo horumarkooda waa idinka aada umahadsan tahay diini su-aalaha dhalinyarada barnaamijkayga caawa ka mid maaha laakiin fursadahan waxaan udin siinay maadaama nagala soo qabasheen arrin muhiimana ay tahay su-aalihii dhalinyarada halkaasi noogu egyahen laakiin hadday jiraan su-aalo socdaalka ku saabsan aragti lagu biirinaya maamul goboleedyada hayo su-aasha aad adoo mahadsan waxaan rabaa cawiil fikir haddaa uga dhawaajiyinaa diini fikir uga dhawaajiyinaa sitii raaco oo ku saabsan dhanka wasaaradaha dadka ka shaqeeya badanaa waxaa laga yaabaa siyaasiyiinta iyo madaxda dowladdaba inay wada og yihiin dadkana si ay ku yimaadaanna waa dadka soomaaliyeed intooda badan way og yihiin waxay ku yimaadaan nidaam qabiilay ku yimaadaan kuraasna way ku fadhiyaan ma jirto in loo tartamo ama ninka kursiga yimid la yiraahdo shahaadadaada dugsiga secondariga kii hoose ma haysataa wax noocaas oo kale inaan la weydiinin haddana taas waxay jaalanji gareynaya marka waxaa laga yaaba wax walba waxbaa related la ah taas waxay caqabad ku noqonaysaa annagii oo dhallinyarada ahaa suu diini sheegay oo wax bartay dalka joogo waxaa laga yaabaa hadda in badan oo isku tiim aan nahay ama urur adoo mahadsan su-aashaada haddaan tixraaco caqabadahaas jira idinkoo og haddana sidee loo xalin karaa dadkaas kuraasta ku yimid nidaamkaas qaldan aada umahadsan tahay hadday jiraan su-aalo socdaalka ku saabsan haddii kalena odayaashaan sii doonaa waa mahadsan tihiin sidaan su-aasha ninka odaga waxaan umaleynayaa caawa barnaamijkaygu qaybta aanu kaga hadlayna habeeno kaloo badana su-aalaha noocaasa laga jawaabi doonaa oo ku saabsan arrimaha wasaaradaha iyo howlaha kala duwan ee ka soconaya dowladda federaalka qaybtii ugu dambeysay aanu joognaa saan la soconno soomaaliya maanta dabaysha shacbiga dabayl shacbi ayaa socota sidaanu la soconno hal sano ka hor 8 February madaxweyne farmaajo markii la doortay dadka soomaaliyeed dabayl noocaas oo kale ah ayaa ka timid haddana markii uu tagana sidaas oo kale dabayl kale oo dabayl shacbi ah ayaa timid dadka soomaaliyeed waxaa moodaa inay ku qanacsan yihiin hanaanka dawliga ah inuu hirgalo oo kala dambeynta iyo sharcigu soo noqdo la adkeeyo nidaamka dawliga aragtida dadka Soomaaliyeed ay qabaan waxay tusaale cad u noqon kartaa in maanta Soomaaliya marxalad kale ay gashay waxaad moodaa awoodii inay dib ugu noqonayso shacbiga Soomaaliya mar hadday soo baxeen oo dibadda yimaadeen oo ay doonayaan in nidaamkii dawliga uu hirgalo madaxdooda qaranka ay soo dhaweynayaan waxaan u maleynayaa sanadka 2018 inuu bilowday dib u noqoshada awooddu shacbigu lahaa inay dib u soo baxdo waana tusaale cad in gobolada dalka Soomaaliya gobolada bari iyo kuwa gobolada dhexe oo ah dadka Soomaalidu meelihii ugu dhibaatada badnaa inay maanta u taagan yihiin in dawlad Soomaaliyeed ay ka hirgasho kana haqla qaado ayagoo soo dhaweynaya madaxda waxaan la soconaa marka madaxda Soomaalidu tagaan goboladaas in mararka qaarkood dhibaatooyin badan lala kulmi jiray qaabiladan helaan ay koobnaan jireen aragtida ay helaan ay ahaan jirta mid yar isla markaana magaalada ay tagaan un maalin iyo laba inta joogan ka soo noqdaan safarkan 17 maalmood oo noqday wajigan cusub ee shacbiga Soomaaliyeed la soo baxay dawladda Soomaaliyeed ma hana qaadi kartaa oo talaabadaasi ma sii hirgelin kartaa maxaa loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay ku biiriyaan oo dawladdan Soomaaliyeed ay ku hogaamiso waxaan ku horeynayaa Salaad Cali Jaale kadibna Cabdi Barra sii doona diiniya u dambeyn doona haye Salaad runtii wax oo meesha aan leesla soo go'aamiyaa jira oo dhinaca horumarka ku saabsan saddex arrimood in meesha dadka deegaanka wax laga sameeyaa horumarka nooc doona ha ahaadee isku tashi ayaa lagula soo dardaarmay isku tashi inay qaaraan ay iska aruuriyaan haddii waddo ay tahay iyo hadday deke tahay dawladduna inay gacan ka geysato dawladda dhexe caalamkana in dawlad goboleedkaasi idoo dawladda dhexe ay kaalmaynayso inay mataqaanaa ay gacan siiyaan saddex marka dhaqaaluhu midna beesha caalamka inay qayb ka qaadato dawladda dhexena ay qayb bixiso qaybna deegaanka uu bixiyo horta horumarka isku tashiga la yidhaahdo sidaas ayaan mataqaanaa leesla soo gartay waana mid oo runtii ay reference ay u noqotay Puntland sida ay horumaro badan
ay ku samaysay marka dowladda dhexe runtii waxaa heesta maanta horta madaxweynuhu wuxuu u ballan qaaday oo uu meel kasta ka sheegay inuu codaynayaan dadku 2021 carabkou ku dhifta wuxuu yidhi ammaanada hadda wixii ka dambeeya hoggaankiina idinkaa dooranaya waana midda si fiican loo soo dhoweeyo shacabka soomaaliyeed qof kastoo soomaaliya inay mataqaanaa ay codayso taasna waxaa kaliya ka xiga wasaaradda voteriska inay soo diyaariso golaha wasiirada ay keento baarlamaanka uu maro dalkana sidiisaba hal degmo ayaa oo sida nidaamku uu noqon kariyo marka xisbi baa loo codaynaya xisbi aa loo codaynaya marka waxaa halkaas ka soo baxaya marka dadkii soomaaliyeed oo ka wada qaybgelaya doorashadii isla markaasna xisbiga loo codaynaya aan loo codayhayn degaan gaara oo dadka soomaaliyeed ay ka wada qaybgelayaan oo cid ku dulman aynan jirin nidaam uun sidaas annaga sida aan rajayhayno ayaan rajayhayna marka dowladda soomaaliya marka waxyaabaha kow laga rabo oo iyada ay ballan qaaday amniga waay arrinta amniga marka waxay u baahan tahay marka inay horta shabaab deegaanada oo haaye oo ay heestaan in laga faramaroojiyo waa qodobka koobaad oo dowladda soomaaliya ay ku tala jirto oo waajib saarana marka aniga waxaan isleeyahay inayna cidlay doonin oo ay fursaddan ka faa'iidaysan doonto dabayshaas shacabka caloolsamada madaxweynaha fiiri qofka nin waxaa la yidhaahdaa sirlaaway saabaa biyuu celish waa maqasha waa mahmaha soomaaliyeed qofku hadduu calool wanaagsan yahay sirmaqabe saabaa biyuu celishaa leeyahay marka qofku hadduu mar caloolsan yahay wax ka halaabaa male shacabka soomaaliyeedna waxa ay saas u taageerayaan waa caloolsamadee wax kale oo uu la yimid oo gaara ma jiraan maadaama caloolsamadaas marka uu wato oo uu asiga uu dadka aaminsiiyey inay dadkiisa yihiin uu dhexda ka gelayo shacabkii soomaaliyeed marka waxay ogaahayaan in marka madaxweyne daacada uu yahay taageeradii marka haddii caloolsamadaasna rabbiga aqbalaya asiga marka waxaad ka garanaysaa mar hadduu yidhi waa codaynaysi haddee soomaaliya hadday mar ay codayso oo ay halkaasi qof walba ay hoggaankeeda doorato wixii dambe oo maxaa yeelay wakiilo shacbiyo rasmiha soo baxay waxaa soo baxaya qofka soomaaliga ah mabdi'iisii u difaaca aragtidiisii u difaaca himilow leeyahay mabaadi'ow leeyahay waxaas marka qabiilkaa u diidan haddii xisbi uu u gudbo marka dastuurkiisa mabdi'iisa wixiisaas u daba soca ciddou doortana waa garab taagnaaha aad iyo aad u mahadsan tahay barre haye bismillahi raxmaan raxiim dhowr su-aaloodba horta ay calaamadsan halkaan ku calaamadsan laakiin horta sideeda wax kasta oo dowladdu qabanayso ama gobollada ha ka qabato ama caasimadda ha ka qabato muhiimadda u koowaad oo u weyn wax kasta haddii la qabarto waa amni amni haddaan la helinna wax inoo kala soconayo male marka amnigii qaabkee ku helaynaa marka ciidamadan ajaanibta inoo jooga haddaynu wax walba ku hadlayno boolis ba inoo noqonayaan markii meel qabto muxuu aha iyagaa fadhiyahaya dhibkeeday leedahay amni waxaan ku noqon karnaa oo amniga la saari kara kow horta inaynu taargetka koowaa saarno si aynu ciidamo ku dhisan lahayn ciidamadeeni boqolaal xeryahaynu leenahay oo dowladihii hore ay leeyihiin baan leenahay waxaan leenahay saraakiil aqoon u leh oo tababar u leh oo xirfad u leh inay ciidan noo tababaraan inaan anugu waxaan qabaa ciidamadeenna ajanabigu soo tababarayo dibadaha laga tababarayo inta la joojiyo xukuumadda soo jeesato oo gobolada dalka ciidamada isku dhafa lagu tababaro ciidamadaas horta ay howlgalaan hortaas waa ku heli karnaa arrintan hadda madaxweynaha runtii shacabkan boqolkiiba 99 waxaa oran karaa madaxweynaha aad bay u taageersan yihiin maxaa yeelay waxay u arkeen nin dhalinyara daacadi u arkeen
waana sida ka muuqata waad aragtay sida meel loo soo marka jaaniskan waxaa kaliya lagu faa'iideyn karaa shacabkii Soomaaliyeed wixii dhex maray iyagoon ciidu heshiisiin oo ciidu shacabkiisa dhex maray maanta haddaad Soomaaliya daba ilaa Seylac ilaa Raas Gambooni socotid horta qofku oranayay qabiilka yaa tahay lagu marka qof wala yaabaya markii qofkaas muddo kula joco ku barto si wuxuu ka xishoonayaa war qabiilkeed afku ku soo dhaweynaya wixii gobolka ka soo jeedaa buu horta hadda kaga bilaabaya xogaa waa laga gudbay qabiilkeeta qabiilka waa laga gudbay dadkii markii soo marka kacdoonka waxa looga faa'iideysan karaa kow waxa ku xigta xisbigeeta xisbiga ka tirsanta arrinta marka kacdoonka oo hadda socda oo shacabka waxa xukuumaddaanu maanta fursad u haysataa kow isimadii laga dambeyn jiray hogaamiye dhaqameedkii oo weli fayow oo sida hadda uu tilmaamay wasiirku tilmaamay boqorada iyo isimadu soo arkay inay ayagu gogol fidiyaan oo isu yimaadaan oo goboladii ilaa gobol ilaa dacfa ay maraan oo shacabka isu soo dhaweeyaan oo maaragtay ay dhahaan wardad maxaynu isku haysanaa canshuurtii dalka sidee loo midayn karaa marka meel joogna waxaad arkaysaa leeyahay dekadii muqdisho canshuur laga qaatayo xamar iyo dekada kuulka lama aado waa run waa su'aal meesha ku jirta laakiin su'aashaas yay ku dhacaysaa yay qabanaysaa xukuumadda ku dhacaysaa xukuumadda waxaa laga rabaa goboladii dalka inay tagto inay maamul goboleedyadii la soo fadhiisato wasaaradoodii la soo fadhiisato sida dastuurku qabo wixii canshuurtaas maamul goboleedka kun ay leeyihiin ay qaataan dowladda dhexna wixii loo soo shubo horta meeshii waxa ka maqan tegidii xukuumaddii iyo wasiirkii maaliyadda ay qaban lahayn horta meeshii waa ka maqanta shacabku marka maxay rabaan shacabku waxay rabaan oo hodhel yihiin annagu dadkeenna waxaan ku soo kornay dowlad waxbarasho la'aan laakiin wasaaradda maaliyadda shuruucda baarlamaanku la fuliyaa ka horeysa shuruucdii baarlamaanku iyagoo heshiiskii shuruucdii baarlamaanku waa diyaarsan tahay iyagaa la raba wasaaradda horta inay ambaqaado horta tillaabadii qaado shuruucdii maamuladaasi canshuurihii lagu qaadayo dastuurkii ku qoran yihiin wasaaradda laga rabaa inay horta tillaabadaas qaado kow dadku marka maxay u baahan yihiin oo dowlad kastoo teeda ka sugahayaan waxay ka sugahayaan kow waxbarasho lacag la'aan ay ka sugahayaan waxay ka sugahayaan muxuu ahaa biyo nadiif oo helaan bay ka sugahayaan waxay ka sugahayaan nabad in meesha la sugo oo wixii dowladda dhexe ay ku lahaayeen ay imaanayso runtii su'aal diini aad uga shirqamiyaa runtii muxuu ahaa aan aad ugu riyaaqa oo ahayd arrinta aqoonta Soomaaliya hadday burburtay dadka maanta jooga boqolkiiba maanta waddanka jooga boqolkiiba 90 haddaa iraahdo waa dadkii dhashay burburkii ka bacda dhashay Soomaaliya waxay soo martay iyo aqoontii iyo dowladnimadii iyo wixii la soo maray xirfad badan uma lahan qaar baa markay arkay ciidamadeena Soomaaliya agto maraya gaardiska maraya dabaabaadka arkeen Soomaaliya misaan ay ahaan jirtay marka dowlad kasta waxa curyaaminaya waxyaabaha curyaaminaya waxa weeye waxaad moodaa in la iska ilaalinayo dadkii aqoonta lahaa oo waxbarashan lahaa dhalinyaradan maanta hadda waa dhalinyaro soo baxday iyagoona maanta muxuu ahaa haddaan iraahdo maanta waxaa tahay jaga isaga dhiibo meeluu maran oo dhibkeeday leedahay marka waxaa loo baahan yahay dadkii aqoonta lahaa in laga faa'iidaysto oo ay dadkii wax baraan hortaasna waa loo hal su'aal baa marka Cabdullaahi uu na weydiiyo aan laga jawaabin ahayd madaxweynaha la sheegay maamul dowlad goboleed baa la yiraahdaa Cabdullaahi dowlad goboleed ilaa dastuurka noogu qoran tahay dowlad goboleed dowladda federaalka ah noogu qoran inuu kuma qorna madaxweynayaal laakiin dowladda goboleedka xubnaha ka ah dowladda federaalka ah noogu qoran oo wax dastuurka noogu qoran marka taasoo dhimaanay dowlad goboleedkaas waa wax dastuurka ku qoran marka dowladdu maanta taas la raba inay uga faa'iideysato oo ayna beerdarina maanta ayna ku ekaan madaxweynihii kaliya inuu maanta meesha joogay xildhibaanadii tagaan gudoonkii baarlamaanku socdo ra'iisul wasaarihii tago goboladii la soo maro kuwa xataa la haysto maaragtay sidii loo xoreyn lahaa laga shaqeeyo marka isku xirnaan yar baa hadda dhimana waxaa ma ahan shacabka Soomaaliya shacab isnacib oo dowlad la'aan waa shacab dowlad bay rabaan waxay rabaan hoggaan caadil ay rabaan marka taasna waa iyadoo tilaabada wax loo sii qaado aad ma Cabdi Barhadiin hay horta waxyaabo badan oo u baahan in maaragtay arrinkan laga xuso ayaa jira laakiin waqtigan saamaxayn laakiin markaan mar labaad ku noqdo arrinka ku saabsan maamul aqoonta oo kale hadda dhibaatada haysata dastuurka 12 sano ayuu socdaa oo la leeyahay dib loo eegaa annagu bulsho reed haddaan nahay 2 maalmood la soo dhaaf waxaan ku shiraynaa hotel Israel yani maalinka bari kale sidoo kale waxyaabaha cajiibka markaan raadinay dad sharci yaqaan ah oo aqoon sare leh dalka markaan raadinay oo tusaale ahaan darajada shahaadada PhD ga haysta yani waxay noqotay fara ku tiris sababta dastuurka markaad fiiriso dib u eegto 2 sababood waay sababta koobaad yani 3 sababood waay sababta koobaad waxa waaye inaysan jirin siyaasad caafimaad qabta oo markasta yani wixii isu soo dhaweynay
midda labaadna waxaad dareemaysaa dadkii aqoonta u lahay yani takhasuskan gaarka ah ama subjectkan gaarka dadkii aqoonta u lahay oo aqoonta sare u lahay oo level in constitution lagu sameeyo inaad lawyer noqotood maxkamad qof ka difaacdo iyo inaad constitution samayso farqi weyna u dhexeeya waxaa kaloo maqan waxaa kaloo maqan oo maalan aad dareemaysaa niyad wanaagii iyo rabitaankii martan madaxda qaranka waxaa wax walba ugu horeeya haddii maanta biyo la-aanu ku hayso ama cuntona la-aanu ku hayso haddii dadka mas-uuliyiinta deegaankaas ama maamul goboleed ha ahaadaan ama madaxweyne ha ahaadaan ama ra-iisul wasaare ay niyad wanaag la yimaadaan waxaa hortaagan in ciidan qaran la dhiso oo madaxweynuhu uusan marti ku noqon deegaanada waxaa hortaagan ma jirto rabitaankii haddii markii madaxweynuhu uu tegey puntland wax alla wixii uu isleeyahay xoogaa xarigjiidaa ka jira madaxweynaha iyo maamulkiisa iyo dowladda dhexe hadduu inta qorshe ula tegi lahay iyadoo salaadiintii iyo siyaasiyiintii iyo shacabkii isagoo dhex fadhiya waxaan aaminsanahay doodiisa waxalisan lahaa laakiin haddii aadan marka hore kaliya inaad soo booqato aad xisaabta ku darsato xoogaa meelan aad soo dhagax dhigto aad xisaabta kaliya ku darto waxay ahayd waxyaabaha caqabada ku ah oo qaranka soomaaliyeed caqabadaha ku ah inuu inta dadkii bulshada dhex fariista yihahdo waxaan halayla xalay anigu waxaan aaminsanahay dadkaas sida aan dhaqanka soomaaliya ku aqaano si fiicanay jawaab soo siin lahay laakiin haddaadan adugu markii horeba in dhibaata ku haysato oo problem ku haysto aadan xisaabta ku darsan ciidankii qaranka waxaa laleeyahay yani hadda qorshaha uu salaad sheego oo ku saabsan amniga federated security micnaheed waxa waaye ma laha structurkii dowladda madaxa bannaan ee soomaaliya ay lahayd ayaa laga qaaday waxaa la yidhi koox laga keenay dhinacaas xitaa waxaa la diidan yahay in hal meel lagu tababaro marka meesha su-aashu ka taagan tahay aniga shakhsiyan saan qabo niyad wanaaggii aqoontii iyo siyaasaddii dadkii ka shaqaynayey oo is ogol oo wada tashanaya yacni xitaa inay inta 3 bilood ama 2 bilood meel isku soo xiraan jabtarrada furan oo laysku haysto siyaasaddu hadday caasimo tahay hadday ciidan tahay hadday horumar tahay hadday tahay awoodda la qaybsanayo hadday tahay maaragtay resourceska dalka la qaybsanayo yacni in ma dhici kartaa 12 sano in 7 sano ayaa magaalada muqdisho caasimadda amnigeeda la sugi laaya aday caqli ma geli kartaa ma geli karta sababtoo aad ninkiisa amniga ka shaqayn lahaa gacanta kuma haayo ninkii ay ahayd in amniga laga ilaaliyo oo asaga laftigiisa maaragtay la karantiilo ayaa amniga loo dhiibay marka waxaa leedahay dib u eegid dib u eegid kaliya wax walba dib u eegid laga dhigi laakiin waxaan qabnaa amniga fiir tusaalan ku siinaa qofkii amniga in laga ilaaliyo la rabay ayaa amniga faraha laga saaray yacni inuu dadki inta xabadeeyo yacni xabsi maaragtay iska geliyo inuu maaragtay ku bahdilo dadkii siyaasiyiinta hoteelada laga soo qabqabto in maaragtay dadkii la yidhaha xitaa ilmihii dhintay meydkooda lama aasi karo maaragtay meel gooniya lagu aaso dadkii ehelada loo diido waxaasaa ka dhalanaya marka haddii nin khabiira oo amniga oo markaas mas-uuliyad gacanta ku hayn lahaa waxaasi waxa lamida ma dhaceen marka annaga waxaan leenahay rabitaanka horta siyaasiyiinta waa in la helaa iyo inay wada tashtaan oo fursad ay ku wada tashtaan ay helaan waa loo baahan yahay in mar kasta ay u yeertaan leeyihin international community noo imaada dhaqan ma aha waa inay wada hadlaan in dadkii aqoonta lahay oo khubarada ahay oo adduunka dhan ku nool in fursada la siiyo aadaa umahadsan tahay diini doodahaasi waa noo dambayn doonaan barnaamijyadana dambaana hadduu ilaahay eedma ku eegi doonaa tallaabooyinka amniga iyo arrimaha garsoorka iyo barnaamijyo kaloo aad u fara badan su-aasha ugu dambeysa waxaan siinayaa salaad cali jaale dabcan dad badan oo soomaaliya ayaa ku dhegaysanaya ku daawanaya aad kula socday markii aad puntland iyo gobollada dhexe ee waddanka soomaaliya sida magaalooyinka kala duwan ee ku yaala galgaduud iyo mudug aad tagtay waxaan la soconnaa inta badanna dadka soomaalida waxay kugu yaqaanaa nin xogta aad u aruuriya la socda laba su-aaladood oo isdaba socota waana barnaamijkaanu kusoo gabagabaysanaynaa maxaa ku xiise geliyey safarka intii aad joogtay maxaase la soo yaabtay aad iyo aad runtii waxaa xiise geliyey oo aad ii mashquuliyey tuulo kasta oo aada marayso hadday yar tahay laba guri kaliya ay ku taalo dadaa taaga waa sabcaaya ma dhaafi kartid adiga waa socotaa kolonyaad ku jirtaa wafdigu uguma talagelin inuu joogsado laakiin iyagiiyaa inta isxilqaama cid haba yaraatee abaabushay ma jirto waxay ahaaday arrin aad iyo aad ii xiise gelisay oon markaas inaad inta dejiso miraayadda aada adiga marka aada dhahdo asalaamu calaykum ama soomaaliya ha noolaato marka degaanada
waa kala duwan yihiin. soomaaliya ha noolaata meel haddaa tiraahdo waxaa u fudud kelimadaas, meelna waxaa u fudud salaamu calaykum. marka waxaad arkaysaa marka in arintaasi ay tahay marka isxilqaam zaa'ida, waxyaabaha kaleo marka naxiiso geliyey. markaan nimidnay guriceel, hal geelahaa naloo geeyey oo hadda dhasha oo canug yar wadato. markaasaa nala yidhi maala idinka gacmaha la gala. hashina adiga ma ogtahay qaab loo liso oo gacanta loola galay leedahay. yaa lisayay marka yaa idin lisay markaan gacanta markaa taagato marka haraatiyi gemi mar ileen qaabkii aad adigu waxaa jira wax la yidhaha haaneedkiiba ma haysatiin wax laygaga heli lahaa. haaneedkii aad adiga ku qaabili lahayd mar haddaadan lahayn haraati waay oo hasho ka barata iyo dhinacii laga gelayaba meel laga galay leedahay. markaasaa markii dambe markii oo aan ku daalnaa naloo lisay. markii naloo lisay marka caaniyoo xumbaynaya ayaa marka hashii caanaheedii waa iska genmaayaanba. ma ahan lisidba ma rabaan saana xataa haddaad ugu toosisad buraha waa kuugu lismaayo sidii tuba waayo sidii tubadii. markaasaa inta naloo lisaa cid walba ay gafuurka la gasha. hadda waad arki karteen youtube-ka waa ka helaysin. runtii waxay aheeda marka arrin cajiiba hodonnimada aan leenahay ayna tusaalaysay iyo in maanta oo hashaasi inta qofooday ay caana sii karto. waxaan is idhi marka yaa geel sidiisaba waxaan kale inta iska dhaafa yaa geel kaliya tabcada. marka waxyaabahaasaa kamid ahay waxyaabihii la yaabka lahaa. wixii ku xiiso geliyey waa taa wax la yaab lamaad aragtay inta safarka aad ku jirteen oo aad istir waxaan meeshaan ma ka jiraan. runtii waxyaabaha la yaab kale waxaa waaye halgankii la gala. ilaa ma ogtaha dagaal sokeeyaa la gala. dagaalkii sokeeye marka oo la galay natiijo la-aanta uu yimid ayaad la yaabtay. aan la yaabo qofkiyaa kuu sheega. qofkii markii uu dagaalamay oo uu dhiig baxay oo awooddiisa uu isticmaalay oo uu marka walaalkiis iyo asigana uu dagaalku ka dhexeeyey ayaa wax natiijaha u soo bixi waaye. markaasuu wax ku hiroo xoolaa ma leh, wax dhiigahoo ku helaya quwad ma leh. walaalkiis inuu la heshiiyo oo kii uu shala dilaayey iyo asiga maanta ay isku naf yihiin oo halgankii kusoo dhammaaday. marka wax la yaab lahay aheeda inaan loo noqonayno soomaaliya ayna weligeen aynan dagaal sokeeye u naqahayna waa soo hubiyo arrin la yaab lahay naqa. tuulooyinkaad tagteen soomaaliya oo kale adduunka oo kale hadda waxaa moodaa aaladan internetka casriya noqotay. meelaha aad tagtaan dadka xoololey waaye dad iska masaakiina waaye internetka ma la isticmaalaa? aad iyo aad sawirka aniga ilaa waxaan isdhihi karaa 3,000 oo dhallinyara waa isla sawiraha. haddii aad meel istaagto waxaa lagu leeyahay sawiraan kula gelaa. mobiley wataan oo casriya. markaasaad adiga geelan waa la joogaan. mana fasaxi mana bixi kartid. mar allaale markii ay dhammaystaan oo koox aad isu sawirtiin mid walba keligiis inuu haddana ku sawiro u rabiyo oo adiga aad la sawiranto si Facebook u soo gudbiyo social media. markaasaad waxaad naqay adiga marka waa daali. markaasaad waxaad noqonaysaa siyaasadna waa rabtaaho dadkii waxaad u baahan tahay iyagoo farcado iyagoo iyagoo kula dhacsan inaad safarka ka tagto. haddii aad mataqaanaa awaamiirtay ku sii hayn aad qaado weydo codkaa weyn karta birita codkaad weyn karta. aad iyo aad aa mahadsan tahay. salaad cali jeelle waa mahadsan yahay. barnaamijkii dood wadaag ee caawa oo aanu kaga hadlaynay isbedelada dabaylaha shacbiga ee xaggii socdaalka madaxweynaha gobolada waqooyi bari iyo gobolada dhexe ee soomaaliya uu ku tegey oo salaad cali jeelle uu ka mid ahaa wafdigii la socday.
aad iyo aad ayaan u mahad celinayaa salaad cali jeelle oo wafdigaas ka tirsanaa islamarkaana xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda guddoomiye oo ah sidaasoo kale cabdibare yuusuf jibriil oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka hore oo soomaaliya siyaasi ah oo isagana nagala qayb galay guddoomiyaha dalladda ururada bulshada ee soshensa la yidhaha diini maxamed diini oo isna caawa barnaamijka nagala qayb galay isna sidaasoo kale waa u mahad celinaya dhammaan ardaydii jaamacadaha iyo qaybihii kale ee nagala qayb galay sidaasoo kale dadkii dunida naga daawanayey farsamo yaqaanada iyo madaxdii tv-ga ee barnaamijka iyaguna suuro geliyey tan iyo intaanu dib u kulmi doono barnaamijka barnaamij lamida waa cawil daahir nabadino